Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal hor leh haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka dhaawac ee qalbiga asxaabta qiimaha badan waxaan idiin sheegaynaa inaan janaalkan usoo wareegnay sidoo kale hadda kadib janaalkan ayaan musalsalada ku falanqeyn doonaa xalqadaha falanqeynta waaweyn ee falanqeynta caadiga ah eed horeyba nooga barateen hadda kadib janaalkan ayaan ku falanqeyn doonaa haddaba muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa arinka ah maxay tahay odayga Shaahiin ah ama sababta odayga Shaahiin ah uu u daba wareegayo gabadhan Cayshe lagu magacaabo muxuuse u daba wareegayaa muxuuse ka rabaa inta aan muuqaalka guda galin fadlan muuqaalka like saar sidoo kale haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe saar waa mahadsan tahay haddaba saan wada ognahayba xalqadii u dambeysay ee musalsalka dhaawaca qalbiga xalqadiisa 25aad ayaa waxay ahayd xalqad runtii aad iyo aad u xiiso badan kadib markii ay isguursadeen Farid iyo Cayshe laakiin tan nasiib darrada ayaa waxay tahay odayga lagu magacaabo Shaahiin Cayshe awoogeed ama waxa uu damacsanaa gabadhan Cayshe lagu magacaabo in aysan arooskaasi aysan tagin dabcan uu waxna ka saarto intuu dhakhtarka geeyo hadda ka hor odayga marka uu sii baxayay ninka Mirsa lagu magacaabo odayga Shaahiin Mirsa waxa uu ku dhahay gabadha qalinka ku samee laakiin nalooma sheegin wax alle wax uu ka saaranayo samadoogan xalqadaha maana soo falanqeynin anigana xilliga xalqadahaas la daawanay mashquul ayaan ku diray si degdeg aan waan u daawaday anigoo san u fiirsanaynin haddii aad warka hayso gabadhan waxa uu daba socdo iyo waxa uu rabo inuu ka saarto fadlan qaybta hoose ee commentiga noogu sheeg haddaba odaygan Shaahiin lagu magacaabo waana Cayshe awoogeeda ayaa wuxuu rabay gabadhan Cayshe in aysan tagin arooskaas sababtoo waxa uu rabay in uu qalin ku sameeyo ka bacdina wax ka saarto ama uu dilo Tayre Elif lagu magacaabana ay caafimaado muxuu yahay waxaas uu ka rabo waan garan weynay runtii markii hore odaygu uu soo baxay gabadha waxa la rabay in kaliya ilmaha laga soo xaaqo iyo saa u daba socday raadin in Cayshe tahay laakiin waxa uu saaranay makaliba ma wax kala beerba moodna wax li xusarna ma sheegayo Tayre Elif lagu magacaabo xanuunkeeda ayaa waxay tahay in wadna xanuun ay leedahay marka saadaradeeda Tayre wadna xanuun ay leedahay sida nooga jeeday meesha maadii qiyaas ahaan marka la eego odayga hadaladiisa waxa kamid ahaa hadii Cayshe dhimato maanta oo maanta Cayshe u dhamaan lahayd adigan waa caafimaadaysa gabadha Elif lagu magacaabo waxaad aniga ma doonayo caafimaad Cayshe wax dambiya maysan garabsanin kulli xalqadaha soo socda maadaama aan hadda cagta saaranahay dhamaadka musalsalka dhaawac ee qalbiga xalqadaha soo socda ayaan ku ogaan doonaa sida ay noo sheegeen waxay sheegeen in musalsalka uu ku dhamaan doono xalqadiisa 33aad haddaba ma sheegi karo in seasonka koowaad halka ku dhamaanayo ama in gabi ahaanba musalsalku uu halkaasi ku dhamaan doono laakiin kaliya waxaan ognahay in musalsalka ama seasonkiisa koowaad ha ahaado ama dhamaadka musalsalka ba ahaado xalqada 33aad ay tahay xalqada uu ku dhamaan lahaa dhanka kale waxaan macasalaameynaa xalqada 26aad ee nagu soo wajahan isniinta soo socota ayaa waxaan macasalaameyn doonaa ninka lagu magacaabo Cadnaan kadib markii ay handeedishay sidaas ayuu taxanaha uga baxay runtii waxa la isweydiiyay qaabka handee u dishay odayga laakiin ilaa hadda waa la garan lahayahay caawimiin habeen dambe ayaan arki doonaa bal gooska labaad iyo sheekadu halka ay ku biyo subato iyo qaabkii Cadnaan loo dilay macluumaad kalaba ayaan arki doonaa marka saas daraadeeda dadka qaar ay arinkan runtii ku riday la yaab handee se u dili kartaa odayga suu u socday waxa uu imaaday arooska ninka Farid waa uuna dhacay kadib markuu dhacay waxa ku soo orday Farid iyo Cayshe xalqadii 5aad halkaas ku dhamaatay gooskana isla halkii ayaan ku aragnay ayuu ku soo ordaya ka bacdina odaygii sidaasi ku badbaadiyay oo odayga saa ku soo qaaday ayaan ka wadaa odaygina halkaas intuu ku dhintay waxa gaar ka bacdi la dhahay wuu dhintay mid kamida dadka taxaniyaasha Turkiga aad u falanqeeyo oo Twitter leh saasay tahay lana xiriira directorada taxaniyaasha Turkiga musalsalada Turkiga ayaa fikir runtii soo jeediyay fikra badan soo jeediyay rumooban waa jireen dhankaas iyo Twitterka ayuu post soo dhigay asagoo leh qaabka ay u dhimatay hadii aan idin qaabko ay handee u disay hadaan idin sheego odaga Cadnaan markii uu aroos ku dhacayay waxa ku soo kacay xanuunkiisii wadna xanuunka ma xume xanuunka markii uu ku soo kacay odayga waxa uu imaaday Farid dabcan arooskiisa ka bacdina odayga waa uu dhacay odayga markii uu dhacay ka bacdi waxa la geyn doonaa dhakhtarka marka la geeyo odaygu wali muusan iman la socda dhakhtarka marka la geeyo
asagu iska joogo oo iska nabad qaba ayaa waxaa dhacday qoftii Hande lagu magacaabay qofka Hande lagu magacaabayay in ay go'aansato in ay odayga kaga takhalusto. Hande way soo dhaqaaqaysaa ayadoo irbado kale mudsiinaysa waxay intaa ka dambeeyeen odayga saasay ku dishay. Maxay tahay sababta ay Hande u dilayso odayga lagu magacaabo Cadnaan? waa su'aal isweydiin mudan runtii sababta ay Hande u dilayso Cadnaan maxay tahay? Cadnaan waxa weeye aabbaha dhalay ninka lagu magacaabo Yamaan iyo sidoo kale Fariidis Namba. sidoo kale Yamaan haddii uu maqlo inay Hande dishay aabihiisa waxa uu samayn doonaa Yamaan mudiri doonaa Hande mise uu ka dhaqaaqi doonaa. tan runtii ugu yaabka badan ilaa hadda aan ku wareersana ayaa waxay tahay Hande sound ognahay waro waxaana lagu sheegay in uur aysan qaadi karin muddo kooban. saasay tahay kadib markii ay falal xun ku dhaqaaqday lagana soo buriyay xabsigii lana geeyay meesha shiistarka dadka walwaalan dhakhtarkuna uu baaray waxaa dhacday in la ogaaday inay uur leedahay. saasay tahay iyadana waxay u sheegtay Bituul markay u sheegtay ninka Yamaan lagu magacaabo waxa uu go'aansaday in uu meesha markiiba ka soo saaro maadaama ay uur u leedahay. uurkaasi ma runbaa mise waa ku laga dambeeyay oo qoftan lagu magacaabo Hande ay ka dambeysay arrinkaas. haddaba kulli xalqadaha soo socda ayaan ogaan doonaa arrinkaas. uma baahno isku mashquulin badan. xalqada soo socota ayaan insha Allah tacaala ogaan doonaa. haddaba dhamaadka musalsalka suu noqon doonaa suusa ku gabagaboobi doonaa sida loo badinayo taxanaha siisa labaad ayuu leeyahay oo siisa ka kubadayaalka ku dhamaanaya halka taxanayaal kale oo badan runtii ay ku dhamaadeen rating ama daawashada oo ku yaraata. inkastoo daawashada kaliya aan la eegin dhanka YouTube-ka ee dhanka kale lacag ka soo galitaanka kale la eegayo daawada la soco ha ku xisaabtaman dhanka YouTube-ka kaliya. haddii daawasho YouTube lagu tartamay kaar Deslarim ama musalka walaalaha lama gaaro oo daawashada taxanayaasha Turkiga asaga u haysta waqti xaadirkan la taagan yahay dhankaasi YouTube-ka. xalqada koobaad ee dhaawaca qalbiga in aysan sameyn ayuu asagu mar walba sameeyaa dhankaasi views-ka YouTube. marka dhanka waxaa laga hadlayaa website-ka iyo daawashooyinka kale ayaa laga hadlayaa iyo dhanka kale ee TV ratings ayaa laga hadlayaa. saa darteeda taxanaha waxa uu ahaa taxanayaasha runtii ugu daawashada badan muddadii u dambeysay. waxaa dhacday si lama filaan ah inuu taxanuhu hal mar u damo kadib markii Mirsa iyo odaygani ay imaadeen ayaaba taxanaha lagu arkay in uu hoos u dego. waagii hore waxa uu ahaa mid xiiso badan saasay tahay kaalmaha shanaad iyo meelahaas ayuu ku jiray laakiin hadda kaalin shanaad xitaa kuma jiro kaalmo xun buu ku jira runtii halka taxanayaal badan ay kor u dhaafeen. inkastoo taxano kale uu weheliyo maalinta salaasada iyo laba taxano kale oo waaweyn ayaa hogaamiya waa taxanaha Utkurus iyo taxanaha Alab Arsalan. labada taxano maadaama jiraan dabcan taxanaha waxaa ku imanaya daawasho yari. haddaba la soco mar walba uu taxano weyn oo daawasho badan uu ku helinayo habeenkaas aad la daawanayo taxanaha hoos u dhacaya. tusaale hadda habeenka Isniinta salaasada habeenka ay soo galayso Isniinta dhamaadkeeda waxaa la daawadaa dabcan taxanaha lagu magacaabo dhaawaca qalbiga taxanaha 3 kumiya taxanaha Alab Arsalan. saddexda taxana wakaasi haddii aad xiisaynayso saddexda baad ku xiran tahay midkee daawan kan aad daawatid mooyne kan kale ay daawashadiisu hoos u dhacaysa la soco. saa darteeda marka nasiibkaaga ayaa leedahay haddii taxano weyn uu kugu soo hagaago aad isku maalin leedin daawanayo. marka saa darteed musalsalka walaalaha waxuu noqday musalsal runtii isgeedinaya saasay tahay hoosna aan u dhicin oo dimcanaha wax xadaafan hoos ugu dhicin sababtoo ah taxano weyn oo goonulda lagu magacaabo oo kaalinta koobaad mar walba ku jira ayaa weheliya. saasay tahay marka labadooduba marmarka qaar way isdhaafaan marmarka qaar hoos u dhacaan oo kolba mid ayaa dhaafa. marka daawadaha qiimiga badan waxayna hadalku ugu daarinay waxaan ka codsanayaa in aad janaalkeena cusub ee Baydog in aad subscribe noo saartid sidoo kale haddii aad garanaysid qaar kamid ah asxaabta qaari drama la wadaag oo u sheeg in aan furanay janaalkan asxaabtaada kalena la wadaag janaalkan. sidoo kale waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ee fadlan daawade muuqaalka like noo saar sidoo kale daawade taxanaha waa u dhamaan rabaa ee saa ula soco waxaana isku day doonaa si maalinle ah in aan uga soo hadalno taxanaha dhaawaca qalbiga iyo taxanaha walaalahaba maalin walba kala soco muuqaalo xiiso badan iyo akhbaaraadka u dambeeyay ee labada musalsal ee walaalaha iyo dhaawaca qalbiga iyo kuwa kale aad dalbatiinba. haddii aad rabtid musalsal kale oo labadan ahayn oo soo falanqeyno dhankaas iyo commentiga nagula wadaag. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.
anigoo saaxiibkiina Khaalid ah sidii caadada ahayd waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.